magaalada Baraawe caasimada Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa waxaa ka furmay tartanka xaafadaha degmada Baraawe iyadoona ay ka qayb galayaan 6 xaafadood oo ka dhisan degmada. Barnaamijkan ayaa waxaa maalgelinayay hay'adda UNDP iyo Somali Joint Fund waxaana fulinayay Baraawe Women. Tartankan oo ujeedadiisu tahay mid isdhexgalka bulshada lagu xoojinayo iyo nabadeynta bulshada ku dhaqan degmada Baraawe ayaa waxaa lagu furay xaafadaha Dayax iyo Qaasim Baraawe oo ay soo bandhigeen ciyaar xamaasad lahayd. Dayax ayaa rigoorayaal kaga adkaatay waxaana goobjoog ka ahaa furitaanka barnaamijkan qeybaha kala duwan ee bulshada iyo mas'uuliyiinta barnaamijkan fulintooda loo soo wakiishay Ibraahim iyo Aamin Cali Siidow iyadoona lagu soo bandhigay ciyaaro hidiyo dhaqan ah oo lagu dhiirigelinayay tartanka ciyaartooyda iyo qeybaha kala duwan ee bulshada oo daawashada u yimid garoonka Cali Cumar Sheegow Stadium ee degmada Baraawe. Waxaana tartankan uu socon doonaa muddo 1 toddobaad ah. Maxamed Qadar Kunya Bro TV magaalada Baraawe.